jaamac waxaan deganahay hadda gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Waxa aan ku noolaa degmada Jamaame. Waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wasaaradda beeraha ee halkaa ka shaqeynayay muddo bishii labaad kowdeedii 1991 oo ahayd markii qaxwo inagu bilowday ayaa habeen maqrib bacda maqriba ayaan shidaal igu qarxay. shidaal dabkaasan ku gubtay oo aad iyo aad ugu dhaawacmay. waan ka soo kismaayo ayaan muddo aalay waa ka soo baxnay waxaan ku soo qaxnay markab waxaan soo fuulay badda waxaanu magaalada Mombasa ayaan Kenya ka soo galay waxaan raadsaday meel aan dhakhtar ka heli karo waxa la tilmaamay magaalada Siyelo cisbitaalka Siyelo waxa aan gaaray bishii sagaalaad 1991 waxa aan halka markaa waxa aan kula kulmay daryeel wanaagsan qalliin baan galay halkana la iga gooyay gacanta buudada hilib laga soo halkan la saaray maalintii ugu horeysay ee aan waarka galay waarku wuxuu leeyahay laba qaybood mise saddex qol oo ay raka buuxaan mid TV bulahmina TV moolahayn gabadh neerasa oo hablihii ka shaqeynayay meesha yimi waxay igu tiri waxay garatay oo garwaaqsatay inaan luqadda ku hadli karin deegaanka lagaga hadlo marka waxay tiri Maxamedow adigu luqadda fahmi maysid meesha lagaga hadlo marka mid bukaan oo kale oo dadkan fahmi karay ayaan soo qaadaya halkan aan keenaya adigana meesha TV-ga laan ku geenaysaa TV-ga aad u daawato aanad u caajisin oo aanad caajis u dareemin waad mahadsantahay baan ku idhi maalintii dambe waa ii timi waxay ku tiri waniyo ma arag in cid ku imanayso in cid ma ka taqaana magaalada waxaan ku dhimay cid kama aqaano in qaxoontiyaana magaalada cid kama aqaan waxay tiri hadii aan ku keeno miro iyo qudaar ma cunaysaa waxaan ku idhi waxa ii keento wad ku mahadsantahay ha marka waxa ay markay shaqada soo galayso ee keeni jirta kolba waxa aan laga heli karin cisbitaalka ee had iyo jeer bukaanka badan aba dibadda looga keenay reerahooda ay uga keenaan waxa aan dareemay in aan markaa wehel oo kale meeshii ka helay ama ehel aan ka helay runtii iyadana ehel ahayd neeras ka shaqeynaysa meesha oo ay daaweynaysan ahayd taasu waxa ay maskaxdeeda ku reebtay xusuus aad u weyn maalintii aan ka baxay cisbitaalka waxa laga qaadanayay dadka waxa uu qiimo ahaan uu ka qaadanayay 100 shilin oo Kenyaana shanta habeen ugu horeysa intay u tagtay management-kii bay tii ninkan waa qaxoontii waxba ma haysto laga daayo 100 shilin ee Kenyaanka laga cafiyo way ku guuleysatay waa laga cafiyay markii aan baxay way si kacaysay magaalada si dhaweysay intii aanu sii soconay baan hal su'aal weydiiyay waxaan ku yiri Florence waxa tahay gabadha ugu yar neeraska ama kalkaaliyaasha meesha ka shaqeynaya maxaad ku keentay inaad caawiso inoo isku luqad ahayn isku dhaqan ahayn wadan kale ka imi waxdana aan adiga lahayn maxaad ku fikirtay inaad caawiso gabadha waxay igu jawaabtay waxaan aaminsanahay hadaan wax wanaagsan sameeyay in wax wanaagsan helayo ayaan aaminsanahay erigaasu wuxuu u noqday su'aal jawaab waafi ah oo ma dhaafaana waxaanay ku dhigtay xusuustayda ilaa iyo intii aan ka soo maqnaa ee aan xiriirkaygu kala furanaan Mareykan soo galay in wuxuu noqotay abuur in maskaxdayda ku biqlamay oo ka soo baxay macnaheedu hadda wax wanaagsan sameeyo wax wanaagsan baan helayaa sanadkan aynu ku jiro bishiisii lixaad ayaa waxaan kulanay in Soomaaliyeed oo Siyelo waxa ay sheekadii Florence 30 sanadood ka hor aan cid walba u sheegi jiray ayuun baan la wadaagay Saadiyo waxay ii sheegtay in gabadha raadinayso iyadoo soo heli doonto way soo heshay telefoon baa ay ii soo dirtay goor subaxnimo ah oo tii Florence telefoonkeedu waa kan telefoonkii waa wacay waa la iga qaban waayay waa la igu dhigay waxaan gartay inuu yahay telefoonku aan garanayn text message baan u diray waxaan ku yiri ima garanaysid waxaynu kulanay 30 sanadood ka hor 1991 marka aad neerska ahayd cisbitaalka Siyelo ka shaqeynaysay waxaan ahaa bukaankaaga waxaad ahayd kalkaaliyahayga aad iyo aad baan aad ii wanaajisay waxaan ku raadinayay 30 sanadood sida aan maran ku idhaahdo waad mahadsantahay marka waad mahadsantahay
farriintayadii sidii bay xidhiirkaygu ku bilowday bishii 8aad ayaa markaa waxaan aaday Afrika waxay ahayd arinka Florence inaan la kulmaa arinka ugu horeeya ee koowaad ee aan u tegayo Afrika Afrikaan tagay Kenyan tagay Machakos ay deganayd oo Nairobi xoogaa yar u jirta halkaasaan taxi ka qaatay meeshii baan ugu tagay meeshii baan ku kulannay aad iyo aad baan ugu mahadceliyay oo aan u sheekaysanay oo aan isu wareysanay gabadhii berigaas ee caawisay markii aan qaxoontiga ahaa ee aan dhaawac ahaa ee aan baahnaa ee aan cidna lahayn iyadoo aan danna iga lahayn oo qof bini aadanimo kaliya iyo caawinaysay waxa aan dareemay xoogaa inuu culays garbahayga ka fuqay markii aan kulanay kadib aan cabaar sheekaysanay dhowr jeer oo dambana aan is aragnay marka sheekadaydii